السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal magacaaga noo sheeg fadlan iyo meesha degan tahay. magacaygu Canab waxaa deganahay Nairobi, Kenya. Canab oo Nairobi, Kenya degan maasha Allah. Channelka yoolka rajada la dhaho la taqaantaa? Maya. Ma taqaanid marka channelka maanta fadhisid waa ka qayb qaadanaysid. Marka su'aalo yar rabaa inaan ku weydiiyo fadlan. Kuwa taqaanid waa ka jawaabi kartaa kuwa kalena waa dhaafi kartaa. Su'aasha koowaad maxaa waaye gabdhaha yar oo hadda soo koraayo waano haddii lagu ilaa hal waana si waana noocaysiin lahayd oo ayakana anfacay noloshooda anfacay waana oo diiniyan mise just general waa iskugu qasi kartaa diiniyan mise general. horta tan koowaad ilaahay ha laga baqo, ilaahay ha lagu xirnaado, waalidkana baari ha loo noqdo because qofkii baari iyo ilaahay ku xiran aakhiri adduunyo waa basgareeye. okay aakhiri adduunyaba وليباني exactly. okay نعم. tan labaad waxbarashada ha lagu dadaalo ina adiga wax qabsatid oo meel aad iska soo saartid ina isku daydid wax ka fiican ma jirto. good. hay su'aasha labaad maxaa waaye maxaa ka qabtaa shukaansiga mise isla socodka guurka ka hor dating before marriage? It is fine as long as we're dheeraanin. waqti ma ka wada dheeraanin mise ficil waa dheeraanin? waqti iyo ficilka labadaba. as long as you're isku dheeraanin. ha waqti kooban aduu yahay caadi waaye. no qof horta isbarashada muxumo qofka waa inaa muddo barato xoogaa inaa barataa then waa inaa aragtaa qofkan inuu mustaqbalkaaga inuu noqon karo mise adigu atay gabar tahay ilmahaaga aabahan ninkan aad la socotid aaba fiican miyuu noqonayaa atay sanaxaad tahay then you go ahead and get married. thank you. badanaa shukaansiga guurka ka hor successful miya badanaa ma guuleystaa? wallahi taas it depends tan koowaad it depends bi'ada markasta ku jirtid tee bi'a adigu successful u noqonaya aragtid of course successful waa dhihi kartaa but badanaa haddana yes kula tahay soo ma waa qabtaa. okay su'aasha saddexaad maxaa waaye hal wax asubin lahayd mise ficil ha noqoto mise qowl ha noqdo wax markaas asubin lahayd haddii maanta $1 milyan farta laga saari lahaa? fast bixi lahaa just skip that question. okay skip that question caadi waaye. dadkeena Soomaalida ummadda Soomaalida meel kasta ku nool yihiin maxay caan ku yihiin? Soomaalida meel kasta ku nool yihiin maxay caan ku yihiin? والله تسمع أغاني but okay عن أهانتي عن وحكويين مثل like the people who I have interacted with حد dadkiin waa iscaawisan you Somalis help each other no matter what. so waxa badanaa dadka ajnabiga naga yaqaan wana iscaawino maanta qofkan tuu Soomaali yahay oo meel cil taagan yahay I believe Soomaalida kale u tagaan that they help way caawiyaan. ma sha Allah taas waa anaxta kula qabaa. هاي مركا أتريد مثل مركز فعل أنا كسر بينه سومالي ذي إليهين وأدي أكو قناع ستة مسا أكو فرح ستة مسا أكجع شيء محاوي سومالي ذين لكن مركز أنا كعلينا كجع شيء لكن ياشين ميكس عليك تساشة لكن إيه سومالي ذي إليهين لويا قان وأدي أكجع شيء وحاسب بينه وحن ويجران وحيل فيع أنا كو عم بحسن هنا وفي عنا ويجران أنا كسر بينه أكو عم بحسن هنا مثل لو يقان وحيلها كجعش محمد يهان Somalia though I'm proud of them because of that trait. والله كلامك هذه كده but I'm proud of everything. حماتنا واقبنا yes like الدنيا نقف ما أنت لكنه perfect مجرد لكن I'm proud of being Somali like I'm proud of everything. Generally Somali. Yeah. Okay. هل واحد مركز أكبر اللي تتكلم محاوي. قبيلة That was quick. Yes. ها قبيلة زائد mentality قوذات قبيل ما أنت أنكساري كرو وأنكساري لها. Because literally ودن كنا وحمان تساني علي وقبيل. قبيل قبيلة ده. Thank you. مركز skills حرفة سمع. Yeah. حرفة. Yeah sorry. حرفة أدي what skills do you have حرفة ده لا ده. Wow.
English Somali isku mid okay it's okay what wow skills xirfadeeda leed okay wallahi to be honest just to be frank I don't know I can't say waxaas because everybody has shortcomings نعم so I can't say waxaas I'm not perfect wax kasta perfect ku be هاي عادي waay marka xirfadee markaas jeclaan lahayd markaa yareed inaad baratid mise hadda waqti ka hor okay sajona jeclaa markaa yareed barto okay so haddii markaas skills ahaan dhinaca medicalka way taas xirfad ahaan dhinaca maxaa waay oo caafimaadka exactly if you knew sooner taas bara lahayd waqti ka hor hadii ogaan lahayd no at that time when I was young waa jeclaa sajon noqdo but hadda the more aweenaaday even when I was in high school dhiiga waa ka baqan jira marka biology class aan qabno dhiiga oo dissect gareynaya animalska waa ka ori jira because dhiigiyaaba ka baqaaba so it was the marka arkay inaas uga baqaayo it took me a back maxaa lahaa dibi celisay okay marka middan maxaa waaye dhalinyarada hadda yar soo koray right and markaas haddii la dhaho skills mise xirfad dhinaca ha noqoto hadalka fikirka waxqabadka tumaalnimada anything maxaa dhihi lahayd markaas ay ka habartaan mise qof maxaa ku waanin lahayd ha noqoto critical thinking ha noqoto mise public speaking ha noqoto research ha noqoto wax baaritaan ha noqoto skillska markaas aad dhihi lahayd qofkan yar oo maanta xirfadaas aad jeclaan lahaa inuu yeeshto maxaa waay wallahi it has to be critical thinking iyo waxqabad wixii inaa u fikirtid oo dhahda waxaan soo qabanaya wax faa'iido ku soo kordhinaysa ma jirto but if you think about something you have to executionka waa muhiimada dadka badan hadda dhibka waxay qabaan dadka badan xataa ma including myself waxaasan qabanaya maybe it's something good haddii waqti aan juhdi geliyo like atee waqti aan juhdi geliyo wixii mirihiis waan cunaya exactly laakiin atee dhah waan qabanaya aan kasii dhaqaaqo faa'iido ma keento so execution taking the step taasaa muhiimada everybody waxaa maanta qabanaysa nolosha waa ina dhahda waxaan waa qabanaya ficilkana ku dhaqaaqdaa okay midda kale maanta haddaa maanta ahaan lahayd madaxweynaha soomaaliya maxaa u qaban lahayd hal maalin bis hadii laga dhiga madaxweynaha soomaaliya waa adag waay tan haa laakiin one day hadii laga dhigi lahaa madaxweynaha soomaaliya wallaahi madaxweynaha soomaaliya kumariyo in weliga inaan noqdo horta been ma fiicno laakiin wallaahi I don't know taas pass yeah I don't know inaan ka fikiro waa taas okay marka maxay imaanaynaa youtube-ka channelka oo soomaalida youtube-ka ka leeyihiin channelada badan yihiin right youtuberada oo soomaalida ah kuwa ugu jeceshay mise kuwa ka taageersanta I'm not gonna and basically maxaa your favorite Somali YouTube channel I'm not gonna lie I'm not a YouTube person shughulku malihi I don't watch any pages I don't watch any ina maanta wax galo fiirsaday asba I'm not a fan ma dhigi kari maanta hebel oo taageera sababta oo taageeraya okay marka midda kalena maxaa waaye maxaa farqiga u dhaxeeya Somali siju iyo Soomaalida caadiga maxaa waaye kow midda labaadna farqiga u dhaxeeya Soomaalida caadiga iyo Soomaalida diaspora say wallahi sida dhahan okay Soomaalida horta Soomaalida caadiga oo wadanka Soomaaliya ka imaaday farqiga naga dhaxay kuwa waxa waaye dadkan sujuuga waa dad masaakiin they are polite like they have the moral values but Soomaalidana Soomaaliya ka imaaday qadajac wax kasta xoog intaga ali ahaanti like that's my point of view waxa arkaa it's my opinion waxaan arka waaye Soomaalida ka imaaday diasporadana kaas horta adduunkooda wala isaga baqiyay ya iska adduubariin azin ayagnan jiljilaa kuwan sujuuga badhaamo waxa laga anagu example ahaana ku taaya waxa kaftan kala dhaas there's something jokes la dhaho samaam Soomaalida waxa arkaysaa qofkii oo ku ceynayo laakiin kaftan ka wado
sujuugan waxaa laga yaabaa ay waxaas naga dhaha inaan ku dhaha laakiin kuwaas they gonna take it personal qofkaas soo waxay dhihi karaa like way yaabayaan uqd nafsi uu ku beeraa waxaas waa dhaqankii meeshaas ka soo bartaan aniga ahaanteed taas arkay intaas aragto ma okay marka waa si jeclaanana si wadana balse intaas kusoo gabagabeynayna thank you very much waa mahadsan tahay maalin wanaagsan insha Allah